عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورفاع أحمد أولي. أنا أرنم عليه ورثاتها. وفي أنا يورنا مقالة المال دود ما نسأرقنا يحجيد أدين وبالحالة دينا ولا يورنا. ولا لا ديات بنسكاسي عنها هاي مقالة أقول لك إنه قوة كيف عن سماها جواد حجيد أدين وما أنا كاسر هذه عصعاية. وأول لجوام نقحسين أو هاد كيف عنو لحية عني أو وينو حاجة برحلة عند جنينه وام نقحسين أو وان يعني maxaa idinku dhacay oo idinkuna yaad gurmad u tiina dhamaankii dhow idinku qoryo la yaacay oo qataf loo ordi maarin arkay xageed u timaadeen oo dadkaad kala qabanaysay Allah inaad adigu u baadahay waxaan islahaa waa gabadhiina waa gabadh dowladda deegaanka Soomaalida adigu ma u baadahay oo maxaa ku qixiyay anagu arkaarnayaan qabano oo ana ku nool jawaacad noo joogay adigu maxaa ku cayriyay oo ma u baadahay adigu may wallahi walaalo mi waad ogtahay ina maalinki dhaweeyeen is aragnayna waan ku sheegay wadankii waad ogtahay walaalo macaan oo cidna ma shaqaysan karto ruuxan ciidan ku guursanin naagtii aan wax soo sheegin waxa la dhig u baatay marka waan iska soo cararnay hadda wiilashii dhagaxlayaasha iyo dhalinyaradii oo dhan waa la qaxay oo waxa la leeyahay ogaadeenkii iyo new booliskii iyo cabdi ilay qoladiisiba cabdi maxamuud raal walaalo waa dadka horta erayada waa la isku khalkhaldaa moogtay marka wixii waan iska dhaxyaacnay alla walaal waan ku gartay sidaad u hadlaysid baan dareemayaa adu u baatay laakiin anagu dowladda Soomaalida nahay waxaanu go'aanka hadda miro hawleed meel aan joognaa oo rabnaa qabano ciidanka Abdullah xaggaas inoo qabanayaan waxaanu rabnaa haddaan nahay ciidanka liin booliska gaarka ah inaanu martahay dagaalkan maarta si fiican oo qayb qaadano anagu meesha qabanaanu rabnaa marka waxaanu islahayn maadaama aan ku arkay gabadhiina biyaha inay qaar oo dagaalkii naga qayb gali oo maxaan ahay way garab istaagi kashataankan iyo soo cararkan iyo waxa hadii ku yahay waree doorta dad waa xoog baa isbedeen oo dad xoog badan baa tiina waa la idin ka xasanaya laakiin waxay ii sheegayaan dadkii hadda anaga nagu soo duusheen sababtoo waa ogtahay oo dhalinyarteen oo badan baa meesha joogta guryaha ka shaqeeyaan oo ku guryaha dhisa waa inaga kuwa kale dhagaxlayaasha waa inaga gabdhaha dhulkan ka shaqeeyo oo inaga u badan yihiin dadkii ilaahay oo dhan hadda ina dagaalka ku jirtaan waan ogaanay idinku maxaa galmudug iyo Puntland iyo idinka kala galayo iyagaaba Soomaali isla maxaa anaga godan noogu soo jiidaysaan arsi iyo argagax hadda qoladii aanu ku dhex deganay waa inaanu ka dhaxano birina xagga ay markeenteenka aan wallahi ilaa shalay waan loo hanjabay hadda ma sheegana inaanu nahay dowladda deegaanka Soomaalida ilaa shalay asila nafti naga qaaday wiilal kuween xalayo afara xalay guureen oo dhinaca kale u talaabeen marka maxaa dhacay niyo oo idinka dagaalka labada dadka ma kala qabataan soo idinkii dowladda isku sheegay walaal maxaa meesha ka shaqaysiinaya dal labada iyo maxaan dhahay ciidankoodii iyo dalkoodii may ka shaqaystaan anagu waxaanu rabnaa dowladda maxaan dhahay Puntland wayna taageertaa anagu inaan taageero xoog leh u fidinaan rabnaa bandira hawleed markaan qabano xaggaan asuna noo qabato waxaanu rabnaa inaanu maadaama reer Puntland ma tahay dad iska diidi yihiin inaanu qabsanaan rabnaa wadanka oo la qabano oo cidii ka soo horjeedo dhan aan indhaha u shidnaan rabnaa walaal هذا كل كار إذا دك وشيطان وضعان galmudug baan la dagaalamaynaa ee soo qaxay ahayd dadkii hadda waa bisheenoo ruuxii la arkaba waa la dili wariyo gadarta naga daayo hadda qof hadda idinla hadli kara ma jiro oo ruux idinla allah kurka xarig laga suriye laakiin hadda xaggii maxaa xagga ayaa sabab u gurman weyday dhankaas oo kale laasiyay laga sheegay loo gurmanayna adigu ka hadlaysid baan arkay u baaqay هذا المشكلة وكل قرية فيها يرجع بالمدن لكن وين كان هذا dadka meelaha ka shaqeysanaya iyo waxa tan madoorin maxay ila taxadiga galmudug iyo maxay taxadiga Soomaaliya wadankiina ku soo noqda oo wadankiina jooga hadda kadib gabadhii aan ku aragnaa deegaanka meelahan ugu weeyaan shaati u baahan kaleena hadaan doono waanu qabanaynaa waanu celinayna marka wadankana waanu qabanaynaa ولا lagu kuna dhaqan baa wareer dhulqol gabdhoodii boqol wiil baa meesha jooga dagaalkana waa ku jirtaan inaad galmudug la dagaalamaysan maalinkii hore markaan lagu tir galmudug baan ku soconaayo
waxaan usoo gurmana masheerteenka waan kula yaabana laakiin ilaa dagaalka gaseen run ma moodaynin hadda waaba noqoshiyo boosaaso u cararaya iyo xamar u cararayaaba meel maan u cararaya dagaalka dadka ka daayo godob yaan laydii soo jiidin anigu hadda wax ka badan intaa laguma dhigi karee godobta naga daayo walaalow masheerteenku soomaalilahana ma haddaan u weelin yaan u weelin lahayn masheerteenku waa dowladda deegaanka soomaalida ka tirsan weeyaan marka waa walaaladana wadankana waa la qabanaynaa وش كتب ورتينا أنا من كتب hadda xageed u socotaano inteed dantiin wax wax iska celin kara ma tiin Buntlandkii yaabano hadda galmudug balaayo maysa u soo gufaysaa wariyaan sameyna qoriya awal bamayna wadane baawr yar baa wadeenayaan leedin leefid intay leed badantii ciidan kan ma yaro ciidan dhowr xaraka soo kala baxayna aad baan u afar badanahay ilaa iyo 4,000 baan ku dhadhownahay iyo ma tahay 2,000 hadda waan ku dhadhownahay marka ciidan kan ciidan la leefsi kara ma aha waxaan rabnaa inaan Soomaaliya oo dhanba dhinacan qasanaadna had ka hadlaysaa galmudug oo yar oo aan toor badan kiilahayn dadkiisa marka ciidan kan aad u weyn yahay ilaa cadaada rabnaa oo socono dibaato badan gaarsiisay galmudug markaas ciidan laga laysay marka hadda waxaan rabnaa fursada inaan si fiican u soo aftiraa rabnaa ilaahay intaan u shidayna أرضي الله ويا ما يدي قبلين يولشنا لين أو بالمدة كذا هذا شعب بدن كلا يه روحوا عرورين يولشنا قبلين يو يمكنني هذا ذك ولا على كده يو ذك ساعديني يعني على يوالين ذك ماشيين حتى كذا هذا بالدجال كهجلين ولا هذه وناسة ما هذه وناسة وقدر إنه واحد هاي وطن كهذه ذك سنغير ولو ذك سوالي ونقش كيسان الناس